بسم الله الرحمن الرحيم وأنا دسالاني ميل كستات جوكتان برشة الصوماليات waxaanu halkan ku qabanay jirjirayd oo ku shaacinayno inaan nahay musharaxiin u taagan maamulka Jubbaland maba dhici doonto hadii ay dhacdo in la doorto gabadha dhinacayga taagan waxay u taagan tahay madaxweynaha maamulka Jubbaland anigu waxaan u taaganahay madaxweyne ku xigeen gabadhana waxaan u soo dooranay wasiirka maaliyadda bal madaxweynaha ayaan siinayaa bal wixii bulshada uu qaban lahaa maba dhici doonto haday dhacdo وما سنتاي مدن مدحوين كحجين كمستقبل كاي Jubbaland waxaanu nahnay musharaxiin markaas u taagan xilka madaxweynaha ee Jubbaland waxaan matalaynaa dumarka Soomaaliyeed ee markaasi inta soo sane isku soo sharxin maanta waxaan muujinaynaa in aan awood u leenahay in aan qaban karno xilka madaxweynaha ee Jubbaland ma wadici doonto indaan u jeeday waxa huwaal hadii ay dhacdo lacala ما بدعسه كو waxaan wax ka qaban doona baarlamaankooda indhaha kaliya ee markaas nimanka socda in aan maxallaha bedeli doono qodobka xiga aan sameyn doono waxay tahay mala burin doono xildhibaanadaasi nimanka laakiin wala askarin doono hadii aan waxay ilaalin doonaan caruurta waxay ilaalin doonaan markaas xildhibaanada markaas xiligaasi jooga ee ayaga bedeleen waxay ilaalin doonaan dhulkii hooyo waxay ilaalin doonaan markaas dumarka ay staff noqon doonaan cid oo banaanka oo diray ma jiri doonto waayo askartii hadii xildhibaan oo lagu ilaalin jiray adaa wax ilaalin doonto dumarka ilaalin doonta waa qodob aniga gaar cidna wax kama bedeli doonto hadii ay dhacdo ma dhici doonto waxyaabaha kale aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay gabi ahaanba mucaaradka ma soo digi karo garoonka Kismaayo sababtaas waxaan u leeyahay intii aan anigu aan nahnay madaxweyne wax mucaarad la dhahayo ma socon doonaan qofkii isku daya inuu mucaarad sameeyo xabsiga baan la tiigsan doonaa xitaa cidna ma tiigsan doonaa sharcigeenu dhan wuxuu yahay oo markaas ku kooban yahay oo kaliya waxay tahay inaanu nahay dad mowqif oo ka go'an in ay xil qabtaan raggii Soomaaliyeed ee markaas maamulka Jubbaland hayay runtii waa rag dabcan intaasoo sanaan ku daynay gurigii baan ku sugaynaa wax ay qabteen malahan wadankii waa wax badan baa ka qaldan marka anagu waa markaan sixi doono wax badan oo qaldan waa sixi doona madaxweyne ku xigeenka ayaan ku soo dhaweynayaa insha Allah oo aan magacaabi doono ku soo dhaw waad mahadsantahay madaxweyne dadkii waxaad u qaban lahayd oo dhan adaaba dhahay oo sheegtay waxaan kaloo sii baraarujinayaa inay xildhibaanada iyo wasiirada intaba in aan ka dhigi doono nimanka askar oo ilaalin doonaan haweenka marka xilka u haya sidoo kale waxaan soo magacaabanay wasiirka maaliyadda isagana bal dhaqaalihii iyo wixii uu ka qaban lahaa iyo qodobada u degsan shuruudaheena waxaa kamid ahaa in wiilka iyo gabadha lacag raadiska in aan ku faan gareyno oo siino maal xoolo isku istaan ma badhici doonto haday dhacdo in furitaan dhan uu jirin waxaan rabaa madaxweynaha ku xigeenka inaad iga saxiixdiin midaas ayaan rabaa in furitaan dhan ee jiri doonin ma badhici doonto haday dhacdo oo madaxweyne ku xigeenka isoo doorteen wasiirka maaliyadda isoo doorteen haday soo galaan qodobkaas ayaan jeclaan lahaa inay ii saxiixaan si furitaan dhanba ee u jirin inta anaga xilka aan hayno oo xilka aan ku jirno